adigoo jooga qaaradda Yurub haddana ka ciyaaraya qadka dhexe waa wax aad u adag maxaa yeelay koox kasta halkay ka dhisan tahay waa qadka dhexe kooxba kooxda kale intay ka dhex adag tahay waa ay kaga wanaagsan tahay kubad haysashada sidaasi darteed aynu ogaanno shantii ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa qadka dhexe waa qiimayn ay samaysay jariirada caanka ah ee sooka xidigga shanaad waxa uu noqonayaa Jorginho laacibkii hore ee kooxda Napoli kan maanta ee Chelsea Jorginho 2017-2018 wuxuu xilli ciyaareed mugle uu ku soo qaatay kooxda caanka ah ee Napoli ee ka ciyaarta horyaalka Seerada Talyaaniga 26 jirkan haatan wuxuu ka hoos shaqaynayaa macalinkiisii hore ee kooxda Napoli Mauricio Sarri waana xidig Chelsea ah si kastay xaalad ay noqoto aynu eegno qiimayntiisa waayihiisii horyaalka Serie A Talyaaniga wuxuu helay 89.3% halka waayihiisa kubaddu cagta ee qaaradda Yurub qaasatan tartamada UEFA uu ku helay 88.6% sidaasi darteed waa mid ka mid ah hal abuurada ugu wanaagsan qadka dhexe ee qaaradda Yurub halka xidigga afraad uu noqonayo Casemiro uu ciyaara kooxda Real Madrid hubaal waxa ah in uu yahay nin daaficiisa aad u adag yahay horyaalka La Liga wuxuu ka ciyaarayaa tan iyo xilli ciyaareedkii 2013 ciyaaryahanka qadka dhexe reer Brazil oo 26 jir ah ayaa ku guulaystay in si sax ah uu u helo 88.1% horyaalka La Liga halka tartamada qaaradda Yurubna uu helay 9.2% sidaasi darteed Casemiro wuxuu noqday xidigga afraad ee ugu wanaagsan qadka dhexe dhanka qaaradda Yurub xidigga saddexaad waxa noqonaya nin aadan aamini doonin waana Nemanja Matic mashiinka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Nemanja Matic Manchester United wuxuu ku soo biiray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isagoo 40 milyan kaga yimid kooxda Chelsea haddana waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan qadka dhexe horyaalka Premier League dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore Manchester United ciyaaryahanka reer Serbia wuxuu ku helay mudnaan gaaraya qadka dhexe horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska 86.7% halka tartamada qaaradda Yurubna la siiyay 89.2% ninka labaad waa N'Golo Kante xidigga kooxda Chelsea laacibka xulka qaranka Faransiiska mid gaaban oo bulshadoo dhan aysan fahmi karin N'Golo Kante wuxuu door muuqda u ku leeyahay kooxda Chelsea wuxuuna ka caawiyay in ay ku iloobaan Claudio Makelele waana New Makelele sida ay qabaan bulshada kubadda cagta bishii Abriil 2017 N'Golo Kante waxa loo magacaabay inuu yahay laacibka sanadka ee PFA ama ciyaaryahanka sanadka ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska si kastaba mashiinka gaaban ee reer Faransa wuxuu horyaalka Premier League uu ka helay 89.3% halka tartamada Yurub sidoo kale la siiyay 89.9 booska koobaad waxa ka soo muuqday dhiig joojiyaha kooxda Barcelona Sergio Busquets ciyaaryahanka qadka dhexe reer Barcelona Sergio Busquets ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan qadka dhexe xilli ciyaareedkii hore tartamada qaaradda Yurub 29 jirkan ayaa ka soo garab ciyaaray isagoo da'yar ah Xavi Hernandez iyo Engineer Iniesta waana wax uu ku riyoodo ciyaaryahan kasta oo ciyaara kubadda cagta taas waa nasiib Busquets wuxuu si sax ah ugu guulaystay 89.4% horyaalka La Liga Spain halka tartamada Yurubna uu helay 93.2% waa mashiinka ugu wanaagsan qadka dhexe ee xilli ciyaareedkii hore Sergio Busquets haddii ay kula tahay in ciyaartooy kale ay mudan yihiin shanta ciyaartooy ee loo soo xulay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan qaaradda Yurub waxaad noogu reebi kartaa dhanka commentiga adigoo nala wadaagaya fikirkaaga sidoo kale isku day inaad subscribe tiraahdo channelkeena si aad noola socoto mahadsanid